birta loo xidhaa waxay tahay ilkaha soo taagan oo dib loo celiyo, ilkaha raaran oo la simo, iyo ilkaha fanaxda leh oo la isku xidho, iyo qaniinyada ilkaha oo lagu hagaajiyo. inta badan waalidka waxaan kula talinaa in ay caruurta hore u keenaan dhakhtarka ilkaha da'doodu markay tahay 8 ilaa 9 jir si loo ogaado cilladaha markaa bilaabmi doona ee u baahan kara hadhow in birta la xidho. haddii se ay noqoto in bir loo xidho da'da ugu habboon ee ugu wanaagsan waa inta u dhaxaysa 11 jir ilaa 13 jir. birta ilkaha waxaa xidhan dhakhtarka guud ee ilkaha markay tahay xaaladaha fudud. markay tahay xaaladaha culusna waxaa xidhan dhakhtarka ku takhasusay birta. haddii ay bir kaa soo dhacdo waa in aad ku noqotaa dhakhtarkii birta ku sameeyey si birtii lagugu celiyo. haddii kale waxaa dheeraanaysa muddada shaqadaada, dibna waxaa u dhacaysa muddadii lagu qabtay ee ay hawsha kugu dhammaan lahayd. caadiyan qofku wuxuu xidhnaan karaa 1 ilaa 2 sano, laakiin waxa lagu kala duwan yahay hadba xaaladda qofka. dadka qaar baa waxay xidhnaan karaan 2 sano in ka badan oo 3 sano ama 4 sano ku qaadata. dadka qaar baa 2 sano ama 1 sano in ka yar ay ku qaadata, 6 bilood oo kaliya ay ugu dhammaan kartaa. dhibaatooyin baa jira lagala kulmi karo inta qofku birta xidhan yahay. inta badan dhakhaatiirta ilkaha waxay kula taliyaan dhalinyarada xidhata birta in aanay ciyaarin sportiska noociisa culus si aanay u gaadhin jugta, waayo ilkuhu markii hore way ka jilicsan yihiin. iminka jugta gaadhaana way saameynaysaa. waxyaabaha dhibaatooyinka kale waxaa ka mid ah qofkii waxaa lagu odhanayaa ama inta badan lagula taliyaa dhakhtarka ilkuhu in aanu cuntooyin fara badan uu daayo. marka dadka qaar waxaa dhacda in uu miisaanku hoos u yara dhigmo. waxyaabaha kale waxaa ka mid ah haddii qofku uu dhakhtar aanu xirfadii wanaagsan lahayn in hadhow tolo dhibaatooyin ay ku keento ilkihiisa. qofka birta xidhan si guud waxaa ka mamnuuca waxyaabaha adag sida lowska, hilibka adag, tufaaxa aan jarjarnayn oo kale, saloolka, kaaroodka oo kale, waxyaabahaas oo kale. waxaa jira inta badan caadooyin dhaawacaya birta. waxaa ka mid ah in qofku qalin beesalka calaashado, in cidiyihiisa uu raamsado, iyo inuu had iyo jeer carabka ku hayo birta. kuwaasi waxay naga dhaawici doonaan birta. marka qof walba oo birta xidhan waa inuu iska ilaaliyaa caadooyinka khaldan. in qofku haddii uu ilaalin waayo nadaafadda ilkihiisa, uu dhowri waayo in uu hadhow tolo la kulmayo in ilkuhu ay xanuunaan, sidoo kalena ciridku uu bukoodo isaguna. maalmaha qofka birta loo xidhay looga hore damqasho wuu dareemaa, laakiin inta dambe ma laha. qofka marka birtu u dhamaato ee braceska ama birihii ilkaha lagu qurxinayo laga furo, waxa lagu xidhaa waxa la yiraahdo retainer. retainerku waa 2 nooc. waa mid fixed ah oo aan la furfuri karin iyo mid removable oo la saaro. tusaale ahaan oo kale qofka hadduu faantax leeyahay, faantaxdii baa la xidhaayo, ilkii meel baa laga soo dhaqaajiyo, meel baa la keenay. qofka haddii ilkiisu raaran yihiin waa la soo dejinayaa, dabeetana dhaqaaq bay samaynaysaa birtu, ilkii dhaqaaq bay ku samaynaysaa, meel bay ka kaxaynaysaa ama position bay ka kaxaynaysaa, position bay keenaysaa. marka birta laga furo si aanu iligii halkii ugu noqon waa in retainerka waxa retainerka la yiraahdo loo xidho. marka retainerkii waa ninka soo sheegnay waa 2 nooc, midna waa removable waa la saaraya, midna waxa weeyaan waa fixed. marka hadba waxay ku xidhan tahay instructionska ama waxa weeyaan talooyinku dhakhtarku ku siiyo. dad badan baa waxay sameeyaan inaanay instructionska ama waxa weeyaan talooyinka la siiyo dhakhtarku siiyo inaanay raacin, dabadeetana qof ilkii sidii ku noqdaan. yani markii uu horeysay birta loo xidhay cabashadii uu watay hadduu faantax lahaa, faantaxdii baa samaysmasa, hadduu ilku qasnaayeen sidii bay ku noqonaya. marka mar walba retainerka qofka marka loo xidho waa inuu instructionska ama waxa weeyaan talooyinka dhakhtarku siinaya uu raaco. faa'iidada birta ilkuhu leedahay waa 2 si guud. midna waxa weeyaan qurxinta ilkaha, midna waxa weeyaan qaniinyada ilkaha in lagu saxo si uu qofku si fiican cuntada ugu cuno. cilmiga la yiraahdo orthodonticska ama waxa weeyaan birtan ilkaha lagu qurxiyo, ilkaha lagu saxo inta badan waxa soo bilaabay ama barbilowga cilmigan waxa lahaa la yiraahdaa masaaridii hore. masaaridii ka bacdi waxa sii hormariyay oo iyaguna sii qaatay Romanski iyo dadkii Greek ahaa, iyaguna dad ilbax ahaa waqtigaas. waqtigu wuxuu ahaa 300 ilaa 400 ciise hortii. waxay u isticmaali jireen inta badan lagu xidhay spaceska ama meelaha bannaan ee ilkaha dhexdooda. qarnigii ka bacdi qarnigii 18aad dhakhtar isaguna Faransiis oo cilmigan ilkaha ku takhasusay oo la yiraahdo Pierre Fouchet ayaa sii hormariyay buug wuxuu ka qoray buug uu qoray cilmiga ilkaha ayuu qayb kamid ah ku daray.
waa 1728kii kabacdi qarnigii 19aad baa la sii hormariyay qarnigii 19aad waxa la furay iskuulkii ugu horeeyay ee lagu barto cilmiga maxaan ku sheegay cilmigan orthodontics-ka la yiraahdo ama birta ilkaha lagu qurxiyo waxa furay nin la yiraahdo Edward Angle 1899kii isagana inta badan loo aaneeyo la yiraahdo cilmiga horumar badan buu ku sameeyay oo waxa weeyaan horumar badan buu ka sameeyay oo wax badan oo ka dhinaabo ku daray waxa la yiraahdo the father of orthodontics baa la yiraahdo inta wixii ka dambeeyay waxa weeyaan uu sii socdo cilmigu waa la sii horumarinayay wuxuu ku jiray tadawur buu ku jiray waxaan oran karnaa Soomaalida kale hadaynu u nimaano Soomaalida waxa la oran karaa the last 5 years ma shantii sano ugu dambeeyay ayuun baa la bartay cilmigan waqtigii ugu horeeyay laga yaabaa in wadankeena la keeno ama dhakhtar wadankeena xiriir la arko waxa laga yaabaa inuu ahaa 8-9 sano ka hor meelaha sababtuna waxa weeyaan dadkeenu waxaan ma inaan haysan xataa dhaqaatiir ilkaha tan waa takhasus birti waa takhasus oo qofku markuu cilmigan si guud cilmiga ilkaha u barto ayuu takhasus kala sii qaata marka cilmigan ilkaha ayaa dhaqaatiirta cilmiga ilkaha baratay baa inagu yaray birta marka hore aanan xidhan waxaan ka aaminsanahay inay tahay wax xanuun ama dhib badan qofkuna uu kala kulmayo dhibaato badan markuu birta xidho laakiin markii aan xidhay waxaan arkay inaanay wax dhib lahayn wax iska caadiyan ay tahay qofku xidhan karo waxaan kala kulmay asxaabteedii iyo family-geeda dadkii igu xirnaa markaan birta xidhay inay soo jiidasho leedahay qurux soo kordhisay birta waxaan rajaynayaa markaan birta iska furo in ilkahaygu sidii aan doonayay ay noqdaan